eebbe naxariistii jannaha ka waraabiye waxa xabaalaha halleeye duleedka magaalada Hargeysa lagu aasay Faadumo Cismaan Aadan oo saaka loo ballansanaa in meherkeedu uu ka qabsoomo mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa balse ay u timid tii xaq ahayd ehelka iyo qaraabada marxuumadda ayaa telefishinka Hoonkeyba la wadaagay tacsida magacaygu waa magac ku qoran waa Cabdifaarax Ducaale waxaan hay inkii xafladda meherka ku soo casuumayay labada beelood inta kala guursanayay xalayto kaarkii baan kala qaadanay nabadgelyan ku kala seexanay waxay ahayd in saaka meherku 10 ka dhaco sagaalkii baan lagu wargeliyo leeyahay wargabadhiiba waa meedo waxay taalaayeen dhakhtar halka kana mucjisada markaa dhacday waxaan leenahay ilaa ilaa waa inay raajicuun inanta waxaan leenahay ilaahay jannada firdawsa ha geeyo ilaahay ehelkii ka tagtay ehelka khayr badan ha u geeyo ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo inanka waan adeer wahay oo ay ahayd inaanu deesaaka u gudoono aqalka ka taagnaa baanu saaka la gudooman lahayre inankana waxaan leenahay ilaahay jannada isagana sabir iimaan ilaahay ha siiyo ilaahay sabir iimaan ha siiyo ilaahay sabir dhamaanteen ilaahay sabir iimaan ilaahay inaga siiyo sidii aqalku sheegayay waa ibra qaadasho waxba dadka lagu tusayaa warba ilaahay laga cabsado wada aragtaa naftu intay jirto inta saaka la guursan lahay caawa aqal adduunyo gel lahayd aqal aakhirey ku jirtaa Allah laga cabsado ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janna inuu ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dambigeeda inuu dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa midda adduunyada ka khayr badan ilaahay inuu siiyaan ka baryaynaa geerida maanta dhacday waa geeri xaqa qof kasta oo biil aadamina uu fili karo oo uu sugayo inuu maalin maalmaha ka mid dhimanayo waxaynu ognahay bini'aadamku inaanu ogeyn maalintu baxayo waxaynu ognahay daqadal naqayna inaanu ogeyn haddaynu ognahay waa ka taabshaysan lahay geerida maanta aynu joognaa waxay geeriyada xaqa ee yimaada kaga duwantay waa mucjiso gooniya waa mucjiso inantaa waa la soo doonay waa loo soo geed fadhiistay maanta sagaalkii subaxnimo ay ahayd in la bixiyo oo gurigii ay ku hamiyeysay muddada dheer ay tagto إنا لله وإنا إليه راجعون الله هو نحريستي وفاطمة عثمان أو ساكا ميركيدو كدعي الربي مغالة هرقيسة kadib sagaalka iyo barka subaxnimo oo loo balansanaa munaasabada meherka ayay geerideedu ka soo hormartay oo waxay geeriyootay 8 subaxnimo oo buura alle naxariistii jannaha ka waraabiye waa gabadh Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Hargeysa rabtay inay bilowdo nolol cusub oo hor leh oo ay la bilaabi rabtay Khalid oo hortiina ka muuqda rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye waxay ku dhimatay magaalada Hargeysa nolosha ay qorshaysay iyo sidoo kale jawiga cusub ee qorsheynaysay waxa ka soo hormartay qadarta eebe oo aanu qofna baajin karin Allah subhanahu wa ta'ala dhamaanteen waxaanu ka magan galeynaa khatarta iyo sidoo kale mootor qaflaha oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu ka ducaysan jiray mootor qaflaha ayaa ka soo hormaray xilliga nolosheeda ay bilaabi rabtay isla markaana iyadoo aan mehrin ayay geeriyootay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye waxay ahayd runtii gabadh dadka inta yaqaanay ay ku sifeeyeen inay ahayd qof aad iyo aad wanaagsan waxaan halkan tacsiid tiraya looga direynaa dhammaanba ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka geeriyootay iyo sidoo kale saygeedii cusba ay rabtay inay la bilowdo nolosha muddo badan ay nolol iyo sidoo kale waqti soo wada qaadanayeen isla markaana ay isla meel dhigeen nolol qiimo badan oo ay rabeen inay saaka ka bilaabaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun balse qadarta eebe ayaa ka soo hormartay tanoo kale ma aha dhacdo ugub ku ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed balse dhawaan ayay ka dhacday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kadib markii rabay inuu soo mehersado gabadh isla markaana uu ka ambabaxay magaalada Burco balse gaarigu intuu soo gaarin goobtii shirka uu gaarigu la gudoomay alle naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanba intii muslimiin ahayd ee dhimatay iyagoo aroosanaysa iyo sidoo kale iyagoo si kale ba ku dhintay rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanba intii naga geeriyootay inagana Allah ay naga daba naxariisto balse waxaynu markasta maanka ku haynaa in geeriyoonayno isla markaana qof kasta uu xilligiisa dhaafaynin laakiin saaxiibayaal waxaanu ka ducaysanaynaa khatarta iyo sidoo kale mootul qaflaha oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu ka ducaysan jiray gabadhani saaxiibayaal ayaa waxay geeriyootay saaka isla markaana si weyn uga naxeen dhammaan ummadii u soo diyaar garowday inay soo qabtaan xalfada meherkeeda isla markaana ay munaasabada farxadda kala qayb qaataan dhammaan ehelada iyo family balse hal mar oo kaliya ayuu jawigu isbedelay isla markaana waxa uu noqday mid mugdiya subhanallah wa arin runtii ama kaag iyo naxdin ku abuurtay dhammaanba
intii ka soo qayb gashay madasha isla markaana saaxiibayaal rabay inay ka soo qayb qaataan munaasabada farxadda oo ay waqti iyo sidoo kale damaashaad la qaataan gabadha iyo wiilka is aroosayay Khalid ayay isaga runtii ku noqotay arrin la yaab leh isla markaana dareen gaar ah kula agtiisa maadaama saaxiibayaal uu rabay nolol cusub inuu bilaabo isla markaana ay isla meel dhigeen qoftii haatan kula hadlaysay 7 iyo barkii subaxnimo isla markaana isla meel dhigteen in saaka ay hawshu gabagaba tahay aad labadiinaba faraxsanaydeen walaw xalay midkiina mid aanu seexan isla markaana bohliyo iyo sidoo kale jacayl daran uu labadiinaba idin hayay isla markaana isla haydeen nolosha si wanaagsan u bilaaba oo qadarta eeba ka soo horumartay runtii waa dareen aad u muruga badan isla markaana aad u naxdin badan oo qof kasta oo jaaniskaasi soo maro isla markaana uu dareemayo murugada iyo sidoo kale dhibaatada uu leeyahay arrinka noocan ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryeynaa in qabriga uu nuuro sidoo kalena eheladii asxaabtii qaraabadii dhammaan samiriye iimaan saadiq oo ka siiyo ilaahay Khalid qalbiga ha u adkeeyo isagana oo ha ka siiyo samiriye iimaan saadiq Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryeynaa in gabadhaas ay ka mid noqoto dadka laga jecel yahay ilaahay xaqiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun runaantii arintani waxay noqotay runtii mid baraha bulshada si weyn ugu faafta isla markaana ay noqotay geeri inta badan bulshada Soomaaliyeed inta qalbigoodu qoyan yahay ay si weyn uga naxaan isla markaana saaxiibayaal la yaabaan geerida degdega walaw ay geeridu la yaab lahayn haddana saaxiibayaal waxay ku noqotay arrin kadisa oo inta badan ay muslimiintu si weyn uga naxeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan idinka codsanaynaa inaad u soo ducaysaan isla markaana aad ugu soo ducaysaan barta hoose ee committee-ga idinko labada dhinacba u soo ducaynaya isla markaana Khalidna Allah subhanahu wa ta'ala uu niyada iyo qalbiga uga reebo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tani waa geeri aad u naxdin badan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryeynaa faamiliga iyo dhammaan cid kasta oo rabtay inay dareen farxadeed la qaybsato Faadumo in ilaahay samiriye iimaan saadiq oo ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun iduguna sidoo kale waan rajaynayaa inaad dhammaantiin hal mar oo kaliya faatixada u wada mari doontaan si Allah subhanahu wa ta'ala ugu naxariisto iyada iyo sidoo kale dhammaanba intii muslimiin ahayd ee geeriyootay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaanteen ba Allah subhanahu wa ta'ala inagana waxay noga daba naxariisto saaxiibayaal markaste waxaad ku dadaashaan inaad toobada saxda qabsataan Allah subhanahu wa ta'ala waxaanu ka baryeynaa in inagoo jidka saxda ku taagan uu nafteena ka qaado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun